TPLF wixii ay geysatay baa laga sheekeeyaa waxa hadda ay wado oo ka sii daran iyo waxa hadday timaado soo wado midna ma aragtay lama indhayn taasana ka sii daraan tii ay geysatay haddii aan ku hormaro xaaladda guud ee dal iyo deegaanba inaan TPLF maanta aan wadno oon ka sheekeyno waqti umaanaan heleyno horumarkeena iyo nabadgelyadeena ayaan sii xoojin lahayn oo danaheena gaarka ayaa nooga muhiimsanaa inaan sii wadano iyo maaragtay isbedelkan hadda la helay inaan sii hirgelino hawlaha anagu ku jirnaa TPLF wixii hore u geysatay intay ilowday ayay haddana tii iyo mid ka daran inay maaragtay ummadii Itoobiya khaasatan deegaanka aan anagu maaragtay leenahay Soomaalida inay u geysato ay u soo midyeelisanaysa iminkana tacadiyadihii marka jiray inaan maanta ka sheekeyno waxaan lagu sii kalifaya haddana waxa weeyaan dad maangaabiye ah oo maaragtay nala dhashay oo nala dhiiga oo nala magaca oo nala diina oo magaci nala sheegto Soomaali nala ah markii ay ku sifoobeen inay maaragtay ay garab siiyaan ama garab saaraan ama bombeenayaan TPLF iyo waxay la soo socoto haddaba tacadiyadahaas aad u fara badnaayeen tacadiyadihii ay geysteen halkan kuma soo koobi karo laakiin markaan u fiirino siyaasad ahaan tacadi weyn bay noo geysteen dhaqaale ahaan tacadi weyn bay noo geysteen arrimo bulsho ahaan tacadi weyn bay noo geysteen diin ahaan tacadi weyn bay noo geysteen dhaqan ahaan tacadi weyn bay noo geysteen xaquuqul insaan ahaanna tacadi weyn bay noo geysteen dhan walbaba dhan noofiyo ma uuna jirin inkastoon kasoo kabanay alxamdulilahi rabbilcaalamiin oo isbedelku intuu yimid guulo waaweyn la hayo oo aan ka kabanayno haddana hadee wixii naloo geystay in la iloobo ma ahan oo meesha looga tago xagga siyaasadda markaan fiiriyo khaasatan deegaankeena horta deegaanada oo dhan dhibaatada way ku hayeen deegaan ka fiyoobaa tacadigii TPLF ma una jirin xitaa ka iyagu ka soo jeedeen oo Tigraayna ku dhaho tacadigu wuu ka jiray iyo dhibaatadu sidaan xasuusnahay in badan baan aniga deegaankan ka soo shaqeeyay madaxweyne walba nin baa ku lamaanaa oo ag fadhiyay waqtiga hogaamadu jireen hogaan walba nin baa ag fadhiyay aan lana caqli ahayn lana diin ahayn lana dhaqan ahayn lana ujeeda ahayn baa ag fadhiyay oo la taliye la oran jiray marka ma ahayn maskixiyanba kuwa madax banaan xukuumadii la soo dhaafay mas'uuliyintooda kuwa ka madax banaan maaragtay faragelin iyo soo yeerin kor wax looga soo yeeriyo iyo ninku ag fadhiyood adigu isaga ka yeersanaysa isaga ka dhageysanaysa aadan ku saleynaynin xaaladaada deegaanka iyo danta dadkaaga iyo maaragtay mas'uuliyadda adigu aad hayso maskaxdaada wax ka yimid aadan qabanaynin ayay u badnayd dhanka dhaqaalaha markaad fiiriso wax dhaqaale ah ma jirin dhaqaalaha dawladda gacanta ku haysay shacabku wax u gacanta ku hayay ma jirin ganacsigu dad gooni u xirxirna habad sibirka lama keeni karaynin dad khaasa keensanayay dadkaasna waxay ahaayeen kuwo u adeega TPLF meel ayna TPLF ayna ku lahayn caagada biyaha aana ku dhaho ayna TPLF ayna faa'iido ka helaynin ma jirin dhanka arrimaha bulshada markaad fiiriso waxaa jiray goobo badan oo qandaraas lagu qaatay oo qandaraasyada iyagu ay gacanta ku hayeen haday biyo tahay iyo haday caafimaad tahay iyo haday waxbarasho tahay goobihii ummadda in loogu adeega ay ahayd oo dhan ayaga iyo dad iyaga u shaqeynaya ayaa markaa la siinaya qandaraasyada markay qaataanna dee wax taya ah ma lahayn kuwa inta la qaatay aan goobtii weli laga taagina way jiraan 30 sano 28 sano maaragtay ay TPLF ay talinaysay dhanka ambulance oo kale oo hooyada dhiig baxaysa iyo umusha iyo in loogu adeego dadka bukaanka ah in ay ahayd ciidanka wadanayeen maamulkaas iska fuushanayo oo baabuur ay ahayd waxyaabo badan oo maaragtay moraal ahaan u xun maaragtay wadaniyeed ahaan ku xun damir ahaan ku xun ayaa jirayay dhanka aan rabo inaan ku rifto dhanka xaquuqul insaanka dadkeenu dhibaato fara badan bay qabeen qofka gabadhu haday maaragtay la hunguriyeeyo oo ay may tiraahdo waxa weeyaan waa magac baa lagu shabadeynayay magacaas maadaama ay dil iyo xiray iyo garaacis iyo kufsi ku mutaysanayso waa marka inay gabdhaheenu marka ay dhaqanka halka kaga baxaan diinta halka kaga baxaan ay maaragtay qabkoodii jabo oo duliyoobaan bay inta badan ay ku sugnaayeen oo rafaad kala kulmayeen
kufsi baa jirayay xad dhaafa oon laga hadli karin oo xitaa hay-adaha sharcigu ayna soo oogi karin baa jirayay waxaa jirayay sirqin baa jiraysay aaway hal doorkeeni odayaashii u waaweynaa oo library-ga noo noqon lahaa oon dhaqanka ka baran lahayn oo diinta ka baran lahayn oo taariikhihii lasoo maray aan ka baran lahayn odayaashii waaweynaa ee deegaanka miyiga waxaa lagu sirqinayay silig baa lagu sirqinayay xitaa habad looma quuray waa waxyaabo aada maaragtay damiirka ugu foolxun dhibaatooyinkan hadda aan kasoo sheekeeyey diiniyan markaad fiiriso haddana dhanka diinta dhib badan baa ka jiray gabdhahaan niqaamka loo ogolayn gabdhahaan xijaabka loo ogolayn gabdhahaan asturaada loo ogolayn gabdhaha waxa ugu fiicneed oo ugu qurux badnayd oo loo riyaaqi jiray gabadha qaawan waqti waxaan soo marnay aada xasaasi u ahaa oo fool xumaa dalka goobo badan baan ka maqnayn anagu wasiirada koraan ka maqnayn oo hadda aan leenahay waxaan ka maqnayn aan maaragtay xisbiga hadda jira barwaaqo aan la midowno waan ka maqnayn iyagoo kala duwanaanshaha fikradaha la ogol yahay haddana dee xumaan qof ku meel gaaray lama hayo waxaan marka oran lahaa waa guuldarriya ciil ceebaan laga gaboobayn wuxuu geystay cadowgii haddaan laga galiiliyoon cadowgu wuxuu shalay geystay haddaadan ka galiiliyoon oo macnaha berrina aad rabto inay soo noqoto dee wanaagga aad raadinayso muxuu yahay hadda nala doodaanoo hadday ra'yi hayaan ay TPLF ay kusoo dhaweynayaan oo kaayaga ka fiican oo TPLF ay maanta jannada geynayso ha soo dhigaan tafadal laakiin wax aan dhacaynin yeysan ku lumin maskaxdoodana yey ku luminin waqtigoodana yey kaga luminin dadkooda hala jaan qaadaan baan oran lahaa